bal su'aal isweydii haddaad macallin tahay ama macallimad aad tahay quraanka inaad carruurta jeclaysiiso ma ka fikirtay weligaa 20-kan waxaan rabaa rag inaan ka soo saaro ummadda islaamka wax ka beddesho oo saameyn ku yeelato taariikhda muslimiintana meel ka gasho su'aal haddaan ku weydiiyo macallin weligaa ma ka fikirtay say carruurtan kuu jeclaan karaan kayfa tuxabbibu al-atfaala lak yani kayfa tuxabbibuhum an yuxibbuuk inay adiga ku jeclaadaan see baad ooga dhigi kartaa bismi illaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ahlan wasahlan bikum ayuha alaxbaab maanta xalqadeenna waxay ku saabsan tahay mowduuc aad iyo aad muhiim u ah cinwaankiisuna uu yahay xabibuu uma callimuu runtii waa mowduuci soo jiitay waxaan ku arkay markas la yidhahdo jibriil litacliimi alqur'aani alkariim oo ku yaalla magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda foorka ama four street ay yidhaahdaan waa cinwaan soo jiidasho leh madrasada ayaan soo booqday markaan soo galay waxaa i soo jiitay fasallada waxaa ku hor qoran xabibuu uma callimuu macnaheedu uu yahay qur'aanka jeclaysiiya kadib waxbara arrintii waxaan kala fariistay macallimiintii iyo maamulkii waxaan ku idhi fikraddan maxay ahayd halkay ka imaaday waxay yidhaahdeen waxaan isku ballansanay oon ka wada hadalnay inaan wax ka bedelno qaabka wax loo baranayo qur'aanka oo aan xoogga saarno in aan qur'aanka jeclaysiino carruurta runtii arrintaa aad iyo aad bay ii soo jiidatay maxaa yeelay arrinta jeclaysiintu waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo saameyn ku leh cunuga inuu qur'aanka uu la saaxiibo oo uu sii socdo markaas ayada ah waxaan u keenay wiil baan u keensaday dugsiga jibriil wiilka markaa horeete dugsiga ayuu u gagamin jiray ama meeluu istaagi jiray waxaa runtii soo jiitay qaabka uu macallinkii loo dhiibay khayr laha siiyo magaciisa hadda sheegi maayo oo aan u ilaalinayo magaciisa iyo camalkiisa inuu ilaahay ikhlaas ooga dhigo wuxuu la sameeyey cunugii saaxiibtinimo saameyn weynna uu ku sameeyey ilaa wiilkii uu igu yiri marka dambe aabba waxaan rabaa inaadan markaskan iga bixinin af ingiriiska ayuu wuxuu ku yiri forever weligay inaan dhigto ayaan doonaya runtii arigaas aad iyo aad buu ii soo jiitay oo cunuga inuu dugsiga jeclaado ama markaska uu jeclaado waa tillaabada ugu horeyso oo ay muhiim tahay inaan xoogga saarno inta aanan qur'aanka inaan xifdisiina aanan ka fikirin cinwaankeenu marka maanta waa xabibuu uma callimuu waalidiin haddaan nahay iyo macallimiin haddaan nahay labadaba bal horta carruurta inaan qur'aanka jeclaysiino weligeen ma ka fikirnay maxaan qur'aanka carruurteenna u jeclaysiinaynaa waxaan u jeclaysiinaynaa si una qur'aanku u noqonin sida uu yahay macnaha inta badan haddeerta qaabka aan u barano uu yahay wax un la iska xifdiyo oo ciyaalka ay soo wada maraan waxay dhihi jireen reemiyigu geel laba jir soo wada mar qof walba wax uu maro si una u noqonin ee uu u noqdo wax saameyn leh oo nolosha qofka bini'aadan ka mid ah qur'aanka maxaan carruurta u jeclaysiinaa walaalayaal waxaa weeye lianna qur'aanku waa manhaju xayaa ee ma ahan wax la iska xifdiyo macallinku markuu dugsiga soo aado oo carruurta uu wax u dhigayo waa inuu og yahay risaalada uu gudbinayo xifdiga uunan ahayn ahmiyadda uu yahay cunugan siduu saameyn ugu samayn lahaa iyo siduu meel weyn uu gaarsiin lahaa maraan yeman joogi jiray oon arday ka ah jaamacadda macallinna waan ahaa qur'aanka ayaan dhigi jirnay annagoo dhalinyaro ah oo yaryar oo jaamacadda markaa dhigto qaybta koobaad ee bajularka marka waxaan xusuustaa macallimiintii yemaniyiinta ahayd ee wax dhigi jirtay runtii waxaa aad ii soo jiitay oo ilaa hadda aanay ilaawin waxay aad uga fikri jireen carruurta inay tarbiyadayaan nin ayaga ka mid ah waxaan xusuustaa mar walba wuxuu dhihi jiray 20 cunug meelahaas u hayay 20-kan waxaan rabaa rag inaan ka soo saaro ummadda islaamka wax ka beddesho oo saameyn ku yeelato taariikhda muslimiintana meel ka gasho yani waa hadaf weyn waaye 20 xaafid inaan ka soo saaraan rabaa ma ahan keliya lianna hadafka qur'aanka aan u barayno waalidku ay noogu keeneen ma ahan in xifdi qur'aanka la xifdisiiyo keliya lafdigiisa ee qur'aanka 3 arrin ayuu u baahan yahay sida manhajka nabigu u ah calayhi salaatu wasalaam suurado badanna ku soo aroortay 3da ta ayaa la yidhaahdaa waa tilaawa qur'aanka xifdintiisa iyo akhrintiisa qofka in la baro iyo tazkiya in la tarbiyadeeyo qalbigiisa wax laga bedelo oo la jeclaysiiyo diinta iyo tacliim diinta in wax laga baro waa mid ilaahay uu ku sheegay huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatluu calayhim
آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هل كاسي علماء waxay kala soo baxeen qofka muslimka manhajka saxda ah ee quraanka inaan u barna ay tahay inuu yahay manhajkaas meelo kale oo quraanka kamid ahna ayadaha ku soo arooreen saa la socotaan sida al-Imran iyo Baqara suurat al-Baqara marka waxay tusinayaan wa yatlu alayhim ayatihi halka waxa galayo quraanka in la xifdiyo in quraanka maaragtay tajwiidkiisa qiraa'aadkiisa iyo adaagiisa oo dhan baa galayo ويزكيهم تزكية ونوع كله وإن عنقة أما المها أما أرض جل وحلا برايو قلبي جيسا أثر لغته ويعلمهم الكتاب والحكمة الدين تينا إلا برا مرك أنا جينا نحج عن صارن تحفيظ ككلية وحمرك ولا القرآن كأن أبرينا عروتنا لأنه وإنه الله صعدان دوننا وحربنا إن عنقة أد قرآن كأولكتي وصاحب لنا نقضه هدو قاضي نقضه هدو سياسي نقضه هدو إنجنير نقضه هدو اختار نقضه meeluu tagaba uu quraanka la socdo oo saameyntiisii iyo tarbiyadiisii ay la socoto waxaan quraanka carruurta u jeclaysiinayna laanahum amaana carruurta amaana ay nagu yihiin waxaan ugu amaanaystay waalidkoodii waa inaan ogaano marka dugsiga soo aadaysid ogow carruurta lagu dhiibtay waa carruur amaana ah waa qalb waxa la yiraahdaa carruurta waa beerkaanagii ama wadnahayagii oo dhulka ku soconayo waalid baa hadaa tahay waa garanaysaa carruurta qiimaha uu waalidka ay u leeyahay عرورتي بيرك دتك أيانا لو ديبي ولذلك إن كفكر القرآن كسان أو تربية ذين لهن وجعليسين لهن مبادئ جود هدان كهذا ولا ليال سبب القرآن كأن وجعليسين عرورته وحا أوه الرأي سويدينين وحوي وكو إن هرتو أن كو فكرنا قضب ككوبات قرآن كعرورته إن جعليسين بل سؤال سويدي هداد معلم تاعي أما معلمات أتاهي قرآنك إن العروت الجعليسيس ما كفكرت وليا ما كفكرتها أنا عادة سيدا أي تهاي دكسية دينا وحوي وإن قرآنك اللي حفظيه ومعلنك وكبقه وعشرك وحفظيه ويعنقه لكن عنقه قرآنك جعليسي أنت أكو قصف لهي هرت أدي وليا ما كفكرتها معلم بعتها بل قال لي أبوك أنت قاعدة أما والد بعتها طبعا معلنك كلمة والد كلفتيز ما كفكرتي بس آشا قراء وليا ما كفكرتي أن تحبب كيف تحبب القرآن للطفل القرآن كسيد عنقه أد أجعلي سين كريسة وكو مركا إن كدغ عن قضب ككوبات إن هرتو أن قدر سنة أجندها إيو قرشها إن قرآنك أن المهنة أن جعلي سينه حببوا ثم علموا بل مركا هو إن جعلي سينه سيرة النبي هذا أنقل عليه الصلاة والسلام والله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم وحو وسامين وكسمي أصحابتيسي إلى أي جعلادين مركي جعلادين وحول بأي هورين وعلى سقطان إني مشركين تورين جيرين وساحر ضدكو سحرة إيوه قفك أركبه وحكو أخي لما يقانه وبدله وحنو عاس أي أخي جيرين إلا أبو سفيان رضي الله عنه مركو وقال كاها وأرانا يوم ما أرك قف أجعل وما أركتي مقولة دي مشهور كهذا كتب تسير كتالي قف بلا آذن أو قف كلا أجعل سيدا النبي محمد أصحابتي سوجعلين وحان أركي ولا كسرى وحان أركي مدحدي أدون كواجه جرتي ولا فارس يروم يو حبشي ما يلبى ضم أنتجي قف أتباعه أو رأسا أو قف صا أجعل ولقي ما أعرف سيدا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصحابتي أجعلين إلى هاي جارين حوله دينا كتجان سيدا صهيب الرومي رضي الله عنه حوله يقاطع النبي إنه هجرود لله ولرسوله الكريم وسامين إيه جعل والنبي وقتك قلبي جودواي مركب ولا ليال إن أنا هرتكو أن قضبك عن كذا ودكسية ذا قرشها كدر صدان كيف نحبب القرآن للأطفال كتاب حجر اللي يراه كيف نحبب القرآن لأبنائنا هذا ساقو قرطان وأتكيل كرتان وإلى بقول صفحة واي اللغة العربية يكو قرينها وحبذا ما كفى إيدي كليسا مركي مامولك أي معلمين تو ولا فريستان أو أرنتاس همي اللي قاعد يكتو oo la rogrogo wax badan oo hadda inta idin sheegay ka qiimo badan baa soo baxay kayfa nuhabbib alqur'ana lil atfal bal jalsooyin inta diyaarataan oo waxaan la yiraahdo workshop ama warsha inta isku imaadaan macallimiinta iyo maamulka oo maskaxda ay tuujiyaan waxa la yiraahdaa maskaxda tuujinta in la isla wadaago fikirka bal in la qorsheeyo sidee baan carruurta u jeclaysiinaa quraanka runtii waxay soo jiitay qiso ay iga sheekeeyeen gabdho ila soo xiriiray khayr la hasiyo oo markas ku leh magaalada Djibouti dalka Djibouti
oo barnaamijkan murshid almucallim maxaa la yidhahdaa macallimiinta ee walaalaha qiimaha badan oo isku kaya xiray ka mid ah ayaa waxay iga sheekeeyeen dugsigii markaska ay fureen in ay qorshe ka dhigteen carruurta siday qur-aanka u jeclaysiin lahaayeen gabdhaha hooyooyinka waaweyn ardayda siday qur-aanka u jeclaysiin lahaayeen waxyaabaha la yaab kale oo ii sheegeen waxaa ka mid ahaa ilaah khayr ha siiyo ciyaalka iskuullada dhigto nidaamiga ama xukuumiga ee faransiiska ku baxo inta badan waxaa laga yaabaa inay ku mashquulsan yihiin iskuullada waqti badan buu iskuulka ka qaadanaya marka waxaan taarget garaysanay dhaheen ma aha ciyaalka keliya dadka diyaarka la ah carruurtooda noo keenaya xitaa kuwaas iskuullada faransiiska jira inaan dugsiga jeclaysiino marka waxaan samaynay dhaheen qaab aan ku jeclaysiino dugsiga inaan si naxariis leh oo la dhaqmano inaan jacayl u muujino in macallimaadka la tababaro in anaga lafteeda aan ka sheekaysano qur-aanka carruurta see baan u jeclaysiinaa taa marka waxaa ka dhalatay dhaheen waxyaabaha aan ku farxay oo ii sheegaan ka mid ahayd waxay ugu yidhaahdeen ciyaal waxaan aragnay iskuulka markay ka imaanayaan iskuulka oo maaragtay nidaamiga caadiga macnaha ay aadaan ee faransiiska ku baxayo markay ka imaadaan duhurkii ayagoonan ama casarkii xilligay ka soo baxaan ayagoo boorsadii dhabarka ugu xiran tahay ayay toos u imaanayeen beeraan heer waxaan aragnay bay hadduu cunuga in la baajiyo oo reeraha qaarkood ay wax intay la soo darsaan cunugu wuu ooyaya wuxuu leeyahay hooy aniga kama baaqanayo gabdho yaryar bay u badan yihiin inta badan iyo carruur yaryar marka cunugu wuxuu leeyahay hooy kama baaqanayo gabadhi waxay leedahay hooy dugsigii kama baaqana way ooyeysaa marka runtii darsi weyn ayaa ku jiro jazaahullah khayran ilaahi subxaana watacaala halkaas kasii fiicna allah sii gaarsiiyo marka bal inaan maraakistu intay fariistaan ay maskaxda tuujiyaan kayfa nuxafidu alqur'aan lilawlaad ma ahane kayfa nuxabib waayadan dambe waxaan meelo ku arkayay dad ku qoranaya markazu kada wa kada litacliim alqur'aan alkariim taxfiid alqur'aanka ereyga layidhaha waxaa la yidhi waxaa ka asalsan oo kasii wanaagsan in la dhaho tacliim alqur'aan lianna nusuustu waxay tusinaysaa khayrukum man تعلم القرآن وعلمه من حفظ القرآن وحفظه معه ما قرأتي ويعلمهم الكتاب والحكمة مركا تعليم أرجع تعليم كأها يا كفي يعني لأن تعليم كهو شملنا يا حفظي يا تربيتي يا تزكيتي وحولا مركز وكذا وكذا للتعليم القرآن الكريم إلا ده قار علماء كم ده دتك أدو دنا يهوش عن اهتمام إمارة حوج ساريا هذه تحفيظ للحنا oo inta kalena la hoos gelinayna la ba'sa laakiin ereyga tacliimka ayaa ka sii xeel dheer qodobka kood marka maxaan ku sheegnay in maskaxda la tuujiyo oo la fariisto oo bal horta ajandaha ku darsano kayfa nuxabbibu alqur'aana lilawlaad waxyaabaha ugu muhiimsan oo ugu horeeya waxaa ka mid ah marka laga hadlayo kayfa nuxabbibu alqur'aana lilawlaad oo qodobka labaad oo inaan ka hadla aan rabo حبب أنت أيها المعلم وأيتها المعلمة نفسك للأولاد عرورتا أديك أسجعليسي ورجع ما كفكرتي عرورتا سيء حفظيان الدريرسك إلهي خير هسيه معلمين تانا ده مع دكسية القرآن كو تاجن كوي أنا جنا صابرة كو هذا تاجن جهدي أدك بيحيان هقول أدك نوي كجيران أو قف كبح كرا ويريه مع ذلك وحاليا بقى إنه معلمك أنت حجاس وجهدي يسكجره سؤال هذا كويدي معلم ورجع ما كفكرتي سيء عرورتا كوج على كلام كيف تحبب الأطفال لك يعني كيف تحببهم أن يحبوك إني أديك كوجي على هذان سيبعد أوقات كرتها وسؤال موقت هي قفك إني كسر عم بلغي على الله طيب وراني واحد بنقول يا معلمك وذان هاي محي إجت على هنا يعني سيد عادي معلمك بقى صوص على اللي عيالك ويبقى ما فرسنا معلمك مركا وسبعا عيالك دريس وقول يست 10 كي كبحان محل هذا سيفي عن أدبته وده أخلاق ده معلمك يكبقان طبعا ده وحوي معلمك way u saxanta bal arinta dib ugu noqo caruurta inay ku jeclaadaan oo jecel adiga ay ku jecel yihiin dartii ay quraanka u xifdiyaan wariga ma ka fikirtay kayfa tuhabbibu at-tifla li nafsik ani waxaan xasuustaa macallimiintii soo bartay ilaahay khayr ha siiyo qaar kamid ah waan jeclaan macallinkaan jeclaan waxaan xasuustaa macallinkayga macallin Cabdirashiid ilaahay khayr ha siiyo Aadam Isxaaq iyo معلم كلا أو نودي جري وحنا نستلدي جري معنا أبو عمار فرحان معلم فرحان ولا أنا ضد ما نكرنا على جابه معلم فرحان أبو عمار معلم فرحان أبو عمار وحنا حسوستا سامين بونولها وحنا حسوستا وحنا جري ساتها أبو سومالي كونفورت وكلا ولا الماشي اللي قدوا عليه أبو بيجري أيالي مركا
ma la yaab jirnay annaga ardadiisa ahayn ayuu wuxuuna leeyahay iska waran see tahay mar buu intuu qaar annaga naga mida na wado ayuu guriga intuu na geeyo maaragtay naczuumi jiray oo shaah iyo wax noo samayn jiray waa la yaabi jirnay yani waqtigaas magaalo yar dad joogo oo dee fog oo markaa ayada ah maxaa la yidhaahdaa haddana sidaas macallin noocaas u dhaha macallinka saan u jecleen oon murtabit aan ugu ahayn runtii aad iyo aad iyo aad ilaa hadda waan xasuustaa maalin baa ardayda wax qaar ka mid waxay u yidhaahdeen macallin farxaan baa ku raadinaya markiiba waxaan gurigiisaan aaday waan raadiyey macallin farxaan baa ku raadinaya wuuna na ammaani jiray waan xasuustaa ammaanta sidoo kale macallinkii macallin cabdirashiid aadan isxaaq xafidahullah waxaan xusuustaa mararka qaarkood isagoo meel noo wado oo maqaayad na geeyo oo maaragtay wax iyo nooga dalbo oo maaragtay ereyo badan oo dhiirigelina macnaha tacalluq baan la lahayn macallinka ixtiraam iyo tacalluq iyo xub ayaa jiray marka kayfa tuxabibu الطفل الولد lak yani seeba kuu jeclaan karaa horta marka koobaad ma ka fakartay bal dib aan arrintaa uga fakarno waxaa ugu horreeya waxa qofka uu kuu jeclaanayo الرحمة 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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم qofku markuu u naxariisanayo waan sheegi doonaa hadhowtay waxaan ka hadli doonaa xalqada dambe ama xalqadan aakhirkeeda caruurta qayb ka walbo ka mid ah kuwa yar yar 5 sano jiro mid walba sida loo jeclaysiin karo quraanka gooniba markaa uga sii hadli doonaa laakiin waxaa ka wada dhexeeya raxmadda qofka inuu u naxariisanayo hadduu dareemo inuu maaragtay jecel yahay waxaa ka mid waxyaabaha qofka ku jeclaado inuu ku ammaano adiga haddeertan qofka ku ammaano maasha allah macallin hebel waa macallin cajiib dadka dhan waad ka jeclaanaysaa saameyn buu kugu yeelanayaa dadka dhanna waad ka jeclaanaysaa المدح والتشجيع dhiirigelin ina qofka soo dhaweysatid kaalay maxaa la yiraahdaa aad laabta soo gashatid see tahay xaaladda ka waran xaalad si fiican buu seexatay yani waxay muujinaysaa inaad jeceshahay in aad maaragtay maxaa la yiraahdaa aad danaynayso arrimihiisa khaaska ah marka naxariista dhiirigelinta ammaanta iyo cunug walba suu yahay inaad ku jeclaato ma aha inaad kuwa fiican kaliya jeclaato waxaa la yiraahdaa jacaylku waa qofka kugu xambaarto wax walba oo adiga aad qabto iyo wax walba oo ma aragtay maxaa la yiraahdaa ka khaldan ma ahan qofka kugu jecel waxyaabaha kugu saxan kaliya waa qofka wax walba ala cilaatihi bay yiraahdaan yani qofka sidiisa kugu xambaaranayo wax walba oo tahayna kugu jecel cunuga cashirkiisa uu daciifka ku yahay waa inaad sidiisa ku jeceshahay waa inaad og tahay marka uu dareemo cunugu inuu jacayl uu dareemo wuxuu bilaabayaa inuu cashirka soo xifdiyo inuu iska kaa ilaaliyo inuu khalad uu kaa galo oo dhan uu iska ilaaliyo waxyaabaha kale oo u baahan waxaa ka mid ah sabr inuu macallin sabr la uu yahay oo cunuga hadduu cashirka uu maanta ka bixi waayo loo sabro oo maaragtay la dhiirigeliyo hadduu cunuga intuu cashirka uu ka bixi waayo oo macallinku uuna ku qaylinin uu ku yiraahdo ahlan wasahlan soo dhowow halkan fariiso إن شاء الله كل علي توان مر كل علات وبرنيسا وحلا يا بقى إنه معنى كاحترام وقاعدة أو قاعدة جعل ولا لأن مرك عرورته حدي أن جعلكوا أبورنا وإحنا سين دونا النتائج عادي أدو ونكسن حدي أن جعل أنا كتر بيضينين وحاد عدونته إن النتائج عكسية أو أما عكسية مالا أسعني أديك بريشر بصاري ساي عدادس سو حوار في عنو كان أسجن هوسبوك على الدجالمية laba qisaan marka ku soo gabagabeynayna xalqadan haduu ilaahay raado waxa weeye qisada koobaad waxa weeye nin Mauritania ah iga sheekay oo saaxiibanahay oo shaqeeyno wuxuu yiri anoo yar baan xifdin jiray mutunta nimanka Mauritaniyiinta la yiraahdo waxay xifdiyaan fiqiga iyo usulka iyo naxwaha ila iyo alfiyat ibn malik adiga kutubtan mutunta oo dhan bay fanni walba way xifdinayaan iyo quraanka iyo mutun fara badan marka hore wuxuu yiri awogay baa ii dhigi jiray oo hooyaday dhalay adigu si bay u kala tageen marka uu jeclaayo si jecel oo ugu tarbiyadeyn jiray buu yiri oo maartay dhiirigelin ah macallin kala la ii dhiibay buu yiri marka macallin kale oo la ii dhiibay wuxuu bilaabay yiri inuu igaraaco inuu pressure gareeyo inuu ma aragtay maxaa la yiraahdaa uu cadaas ugu sameeyo marka qalbigayga asxiray buu waxaan bilaabay yiri in aan cashirka xifdi markuu idhaho aan xifdin karo aan waxifdin la ahay iraahdo oo iska daba wareejiyo waa dagaal hoosaad baan bilaabay waxyaabaha kale oo bilaabay waxa kamid ah buu yiri waxa uu xifdisiyo oo dhan inaan ilaawaan isku day jiray buu yiri
oona muraajicin laana wax markaa xifdiso matni baa hadda xifdisay ama aayado quraan haddaad ku celin waa ilaawaysaa waxaan u ilaawi 11 sano jiray ilaa 10 sano waxaan dhihi jiray ilow si hadhowta loo dhaho wax uu macalinkan kale maaragtay uu baray ma lahan wiilku naga lugooyay si loo yiraahdo oo aan u muujiyo inuu macalin faashil yahay waa cunug 10 sano jir ogow dagaal hoosaadka bal fiiri macalin faashil asaan u muujiyo waxaan sameyn jiray casharada oo baro oo dhan inaa ilaawo yaan jeclaan jiray oo maaragtay halka maaragtay asaga ceeb aan ugu soo jeedo markuu xifdi dhahana anoo xifdin karo yaan ku celcelin buu yiri aayadan ku celcelini ama naska iyo wax baan ku celcelin la diray matniga si aan asaga u lugooyo marka runtii qiso la yaab la waay 10 sanana jiru yiri waa dagaal toos oo kula galaya cunugu hadii aad cadaasku haduu kula laakiin ku jecel yahay uu ku hor ordaya asaga ayaa ku hor ordayo qisada labaad aan ku dari lahaa waxa weeye markas al-Faaruq oo aan joogi jirnay oo magaalada Taiz dalka Yemen markas quraani waa carruur yar buu ka bilowday waagi dambana aad buu weynaaday bifadlillahi taala marka waxaan xusuustaa macallimiintu waxay aad iyo aad ugu dadaal jireen carruurta in dugsiga ay jeclaysiiyaan mid walbo maxaa la yiraahdaa carruurtiisu soo dhawaysanaya waxaan yaabaha aan aad u xusuusto waxa kamid ah carruurtii marka waxay jeclaadeen dugsigii iyo masjid buu ku dhex yaalay markaska quraanka aan ka dhigi jirnay waxay jeclaadeen markaskii iyo masjidkii markay iskuulka ka soo baxaan ilaa ay habeenkii ka hoydaan inta masjidkii iyo markaskii joogeen markuu dharka uniformka iska bedela asagoo ordaya ayuu hore ka imaanaya dugsigu buu imaanaya maghribkii baa la tukanaya casharkiisuu ka baxaya cishihii baa la tukanaya xilligii guryaha inay u noqdaanoo shaqadii loo diray iyo laylisyadii iyo iskuulka looga soo diray inay ka shaqeeyaan laga rabay weli waxay sii fadhi macallimiintay rabaan ay ka ag wareegayaan mar rabaan inay macallin inaan kaa taga mar rabay qaar ay ku dhihi jireen macallimiintooda markaskii bay masjidkii bay sii waxaa la sii marayaa 3 saac ama 9 habeenimo saad u taqaano ayaa la sii marayaa macallimiinta inay kala tagaan bay rabaan carruurtina weli way sii joogaan marka waxay muujinaysaa ciyaalkii inay jeclaadeen meesha hadda bifadlillah saan warka ku hayo oo igu soo gaartay markaskii carruurta yaryarada waagaa dhigan jirtay baa mid khatiibka ah iyo mid imaamka ah iyo markaskii arri oo dhan hadda maamulo ayagoo jaamacadihiina dhawmeeyey oo qaar ay injineer noqdeen qaar ay dhakhaatiir noqdeen marka waxay muujinaysaa arrintaa waxay tusaale u tahay in quraanka cunuga marka la jeclaysiiyo wax badan uu keenayo oo uu quraanka la saaxiibayo laakiin markii lagu qasbo oo xoog aan saarno waalidka qayb weyn bay ka yihiin طبعا iyo macallimiinta aan xoog saarno in cunugan uu quraanka uu xifdiyo oo xifdiga uu xoog la saaro oo maaragtay lagu ciidaadiyo oo lagu garaaco oo maaragtay hakada waxa dhacaysa cunugii wixii uu bartay inuu sii daayo oo ka tago marka runtii waxaan aad iyo aad aan mar walba uga fikiraa hadda carruurtayda si khaas ah taasna waa idin kugu daraya waxaan weydiiyaa macalinkaada ma ku jecel yahay haye dugsiga ma jeceshahay ma jecel hadduu dhaho halkaas wax baa ku jiro tarbiyadii waa dhaawac weyn baa ku jiro macalinkaada ma ku jecel yahay ciyaalka markay yar yihiin runta ay kuu sheegayaan ma jecla macalinkayga weligii waan ku jeclahay ma dhihin qaar ku dhahan baa laga yaabaa qaar waxay ku leeyihiin ima jecla macalinkayga way ugu qayliyaa ama maclimadeedu way ugu qaylisaa ama saas oo kaleeta marka aad cunuga ka maqashid waalid haddaad tahay macalinkayga wuu jecel yahay wiilkaygoo yar baa wuxuu ugu yiri 6 sano uu jiray aaba macalinka anaga wuu jecel yahay annagana waan jecelnahay macallin Axmed baa la oran jiray ilaahay xifdiyo runtii eragaas aad iyo aad buu u soo jiitay laana waxaan ogahay haddii cunugu uu macalinka hadduu cunugu uu dareemo in macalinka uu jecel yahay wax badan baa halkaa ka qabsoomayo qaybtan hore oo ku saabsan xabibu thumma callimu inta ayaan kusoo gabagabaynayna insha Allah taala qaybta labaad ee barnaamijka xalqadan ku xigto waxaan uga sheekeyn doonaa qorshooyin gacan naga siin karo sidee baan ciyaalka quraanka u jeclaysiinaa 5 sano 6 sano markay marayaan 7 sano ilaa 10 sano 11 ilaa 13 13 ilaa 16 mid walba qaab loola dhaqmo leeyahay qaabka loola dhaqmo inaan fahanno ayaa waxay gacan naga siin doontaa inaan jeclaysiino quraanka oo quraanka aan ku tarbiyadayno aad iyo aad baa u mahadsantihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalkiina allaha mid weyn ka dhigo oo idinka aqbalo juhdiga weyn oo wadaan macallimiinta annagoo dhan naga aqbalo wajazaakum allahu khayran. Assalaamu calaykum.